weligay ismaan odhan urkaygana kumay jirin rume ooridaade amarkaa qorraaye isaseeganagu dhacay waa amurinaga weyne isaseeganagu dhacay waa amurinaga weyne. kulanti wacan daawade waxaan filayaa inaad caafimaad qabto alxamdulillaah inta xanuunsanna bogsiimo degdeg ah ayaan eebba ugu rajaynaynaa. maanta maxaa idin wadnaa waa sheeko ku saabsan qiso jaceyl oo aad u xanuun badan waxayna ku dhacday oo nala wadaagtay mid ka mid ah gabdhaha dhalinyarta ah ee Soomaaliyeed. qaybta koobaad ee sheekada isaseegna waxay ku bilaabanaysaa sida tan. waa subax aroor hore ah dadka oo dhami raxan iyo koox ayay u socdeen. nin walbana waxa uu ku howlanaa meesha uu maanta ama aroortan u jarmaadayay. jawiga waa mid degan oo qurux badan, cadceed kulul wada tahay ma jirto. saaka cirka oo dhami waxaa daday daruuro wada madow ah kuwaas oo saadaalinaya roob xoog leh. saxan macaan oo sida taleer qaboob ayaa dhacaysa taasoo aad sanka la raacayso. caleemaha dhirta oo dhami waxaa luxaya dabaysha socota, soo dhaweynaya mashxarad jawigaasi ah inay ku jiraan baad u malaysaa. dhammaan reerka ayaa mid u laabgelinayay, isku duubayay oo qof walba waa uu ku dul ooynayay, wuxuuna u sii sheegayay inay xoog ugu xiisi doonaan maadaama ay ahayd qof furfuran, kaftan badan, aadna u naxariis badneed. waxaa ugu darneed markii yaraanka gurigooda Suhayb yare laga reebi waayay. markani waxay u safraysaa dhul dheer, waxayna soo xaqiijin rabtaa qayb ka mid ah hadafyadii ay sanado badan ku taamaysay. ugu dambeyntii waxay ilinka gurigooda ka soo raacday baabuurkii geen lahaa garoonka ama madaarka ay ka dhoofaysay. dhammaan waraaqihii dhoofitaanka iyo aqoonsigii dalku galka intaba inay wadato ayay aad isaga hubisay. indhaheeda ilmo ayaa ka tiflaynaysay maadaama guriga hooyadeed ay ka tagayso dhul dheer oo ay dadkiisa aqoonin ay u socoto. magaaladu waa Muqdisho, mararka qaar jidadkeedu waa saxmad miiran, madaarkeeduna waa mid aad u ah mashquul. waxaa gaariga laga shiday heeskii ahaa dhoof ama taar ee uu ku luuqeynayay fanaanka codka dabacsan ee la foole. haddii aad dhaqaaqdo inaad dhoofta jeceshahay, gaarigaa dhaqsanayee ku sidaa madheeliyo uma seexdo dhinaceejah. ilaahay dhantaalkiyo kuma tuso dhibaato, ayaan dhalad nasiibliyo mid hooda leh kaa dhigo. si xoog ah ayaa murugo looga dareemayay hindhaheeda. waxayna ka xumeed ka tegidda dhulkeeda hooyo iyo magaaladii ay ku qaadatay inta badan nolosheeda oo ay ku lahayd walaalo iyo saaxiibay aad isugu dhawaayeen. marka laga soo tago qoyskeeda, baaritaan dheer oo waqti qaatay kadib waxa ay soo gashay gudaha garoonka, waxayna fadhiisatay halkii ay ku sugi lahayd diyaaradii ay raaci lahaayeenna. waxay xiratay earphones ama dhegaha wax lagu dhageysto, deetana waxay isku madadaalinaysay qadka qaasatan barta YouTube-ka oo ah aalad la soo dhigo muuqaalada midka aad doontid. iyadoo sidaas u wadwada ayay aragtay hees qoraal ah uu qaaday Allah u naxariistay boqorkii codka Tubeex, dibna uu ka soo cusboonaysiiyey fanaanka Cabdi Holan ee ahayd maalintaad baxaysay magaalada ka dhoofta, muxibbo ku jaleecay miirkan lahaa iyo maankii ku raacay. si hoose iyadoo iskula hadlaysa ayay tiri, waxani oo dhan ma anaa la iigu dan leeyahay. waa heestii baabuurka iyo tanba ma inaan baxayo ayay ogyihiin. cakuye inta ay tiri ayay u dhaqaaqday goob wax lagu cuno, ma waxay cunto ayayba ka haysaaba. maanta waa ayada naxdin inta kala badbadatay, cabsi weynna indhaheeda ka muuqdaan. ma safarka ayayna doonaynin inay ka dhoofto dhulka hooyo iyo dadkii ay jecleed mooje. waxay dalbatay quraac fudud inkastoo wax la cunaba aysan ka haynin maanta, balse hooyadeed ayaa soo wacday oo waxay ku tiri wax cun, baahida iska ilaali. markii ay dhammaysatay raashinkii lacagtiina ay iska bixisay ayay dalbatay koob bun ah si ay caajiska isaga yara qaado. iyadoo aad u murugaysan oo koobkii qaxwaha ahaana haaf u marayo ayay soo cagdhigatay diyaaradii. waxaana la qaatay codbaahiyihii oo waxaa loo sheegay in rakaabka diyaaradan ay saf galaan si loo hubiyo waraaqahoodii bixitaanka. deetana waxay galeen saf dheer. baaritaan kadib
waxay galeen diyaaraddii waxaana lagu wargeliyey in Ethiopia ay transit ku yihiin. qaybtii koobaad ee sheekadii Isaseek waa inaga intaa daawade. waad ku mahadsan tahay daawashadii weliba dhegeysiga sheekadan qaybteeda koobaad. haddii ay ku cajab gelisay aad sugi leedahay qaybaha dambe ee sheekada fadlan aragtidaada nagula wadaag qaybta hoose ee commentiga. muuqaalkan la wadaag saaxiibadaada mahadsanidina.